ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waa dagaallo culus oo dhimasho iyo dhaawac sababay oo xilligan ka soconaya magaalada Xalab ee dalka Suuriya halkaasi oo ciidamada dawladda iyo xoogaga SDF ee Kurdiyiintu ay ku dagaalamayaan ciidamada dawladda oo wata dababaadka dagaalka ayaa ku sii guurguuranaya magaaladan oo qax ballaaran uu ka socdo wararkii ugu dambeeyay ayaan idin haynaa ee amuurahani Iiraan iyo Israa'iil oo caawa hawada isu mariyay hadallo kulkulul oo hanjabaada iyadoo midba midka kale ugu goodiyay in caana uusan ka dhibi doonin haddii uu weerar ku soo qaado tani waxay ku soo aadaysaa xilli xiisadu cirka ay ku shareeran tahay madaxweyne Vladimir Putin oo si buuxda u garab istaagay Venezuela oo qarka dagaal ay isu saaran yihiin Mareykanka Ruushka ayaa uga digay Trump weerar ka dhana dalkan ku yaal xeebaha Kareebiyaanka sheekada ugu dambeysay ee barnaamijka aridii kugu hayaana waxay ku aadan tahay tartan la yaab leh oo cajiib ah oo ka dhacay waddanka Turkiga maxaa lagu tartamayaa sheeko qosol badan ayaan idinkugu haynaa barnaamijka xaggiisa dambe dhammaan wararkan iyo weliba qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordha intaynu hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka qubanaha soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ku soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka caawa waxaynu ku bilaabaynaa Suuriya halkaasi oo iska horimaadyo culus oo la isku adeegsanayo noocyada kala duwan ee hubka oo ka socdo magaalada Xalab ee waqooyiga dalkaasi iska horimaadkan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Suuriya iyo kuwa SDF ee Kurdiyiinta ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca in ka badan 10 qof sida ay xaqiijiyeen ila caafimaad isku dhacyada waxay bilaabeen isla markaasna la sheegay inay xoogooda ay ka socdaan agagaarka isgoysyada Shihan iyo Al Yarmoon ee waqooyiga Xalab halkaasi oo ay la sheegay in dagaalamayaasha SDF oo ku hubaysan qoryaha liishaanka dheer ay weerareen goobaha ay joogaan ciidamada dawladda taas oo dhalisay israsaasayn xooggan labada dhinac ayaa qirtay inay jiraan khasaare askartooda soo gaaray inkastoo tirakoob rasmi ah aan la shaacin telefishinka dawladda Suuriya ee Al Akhbaariya iyo wakaaladda wararka ee Sana ayaa ku eedeeyay ciidamada SDF in ay bartilmaameed ka dhigteen xarumo amni iyo xaafado rayidku ay degan yihiin oo ku yaal agagaarka Jumayliya Sayriya iyo meelo kale halka warbaahinta SDF ay sheegtay in weerarka ay bilaabeen waxa ay ugu yareen faraaciinta dawladda Dimashq isla markaasna dawladdu mas'uul buuxda ay ka tahay colaadan wasaaradda arrimaha gudaha ee Suuriya ayaa sheegtay in SDF ay ka baxday baraha wada jirka ee kontaroolka isla markaasna rasaas ay ku fureen ciidamada amniga gudaha dhankeeda wasaaradda gaashaandhigga ee Suuriya ayaa ku eedeysay SDF in ay si lama filaan ah u weerartay goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada iyo booliiska ayna dhaawacyo keeneen weeraradaasi waxayna beenisay eedeymaha sheegaya in ciidanka dawladdu ay bilaabeen weerarka dhinaca arrimaha bini'aadantinimada dad badan oo deganaa xaafadaha ay rabshaduhu ka dhaceen ayaa bilaabay in ay ka barakacaan iyadoo dabab iyo gubasho laga soo sheegayo xaafadaha Jumayliya iyo Sheikh Taha kadib markii ay ku dhaceen madaafiicda SDF sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ah wakaaladda wararka Sana waxay ku waramaysaa in SDF ay madaafiic ku garaacday cisbitaalka Al Razi halka wariyaasha halkaasi ka soo waramayana ay sheegayaan in rayid badan ay ku dhaawacmeen duqeymaha xiisadda ayaa weli cirka ku shareeran waxaana laga cabsi qabaa dagaalku inuu sii xoogaysto iyadoo wararka ugu dambeeyana ay sheegayaan in ciidamo aad u fara badan oo ku hubaysan dababaadka dagaalka iyo weliba baabayaal ay ku sii socdaan goobaha dagaaladu ay ka socdaan hagaag intaynu barnaamijka ku jirno wixii warah ee arrimahan ay ku soo kordha
waynu arki doonaa hagaag markan waxaynu u gudbaynaa xaggaas iyo Moscow iyadoo xiisadda ka dhex aloosan Mareykanka iyo Venezuela cirka ay ku shareeran tahay isla markaasna laga cabsi qabo dagaal inuu dhex maro Washington iyo Caracas ayaa waxa war uu ka soo yeeray dhanka Ruushka ayaa sheegay in uu si buuxda u taageerayo Venezuela xilli dalkan uu wajahayo xayiraad Mareykanku uu saaray maraakiibta shidaalka ee la cunaqabateeyay kuwaasi oo la sheegay in Mareykanka uu ka ugaarsanayo badda Karibiyaanka bayaan wadajir ah oo ay soo saareen labada dal waa Ruushka iyo Venezuela ayaa lagu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka iyo dhigiisa Venezuela Sergey Lavrov iyo Yavan Gil ay qadka telefoonka ku wada hadleen isla markaasna si kulul ay u cambaareeyeen tillaabooyinka Mareykanka oo ay ku jiraan duqeymo lagu qaaday doonyo lagu eedeeyay ganacsiga daroogada iyo qabsashada 3 markab oo shidaal siday wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa farta ku fiiqday in labada wasiir ay muujiyeen walaac xooggan oo ku saabsan kordhinta ficilada Washington ee badda Karibiyaanka kuwaasi oo ay sheegeen inay qatar ku noqon karaan gobolka isla markaasna halis ay gelin karaan badmarinada caalamiga ah Ruushku wuxuu ku celiyay taageeradiisa buuxda ee uu u hayo midnimada hoggaanka iyo shicibka Venezuela labada dhinac ayaa sidoo kale isku raacay in ay sii wadaan iskaashi dhow isla markaasna isu dabridaan siyaasadaha dibadda gaar ahaan kuwa gudaha qaramada midoobay si loo ilaaliyo madax banaanida dowladaha iyo faragelin la'aan arrimaha gudaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in maalinta bariya ee talaadada kulan uu ka yeesho xiisadda sii kordhaysa ee Venezuela iyo Mareykanka Venezuela ayaa ku eedeynaysa Mareykanka falal ay ku tilmaamtay sharci darro oo ay ku jiraan weeraro qabsasho maraakiib dilal ay ku sheegtay in ay fulinayaan ciidamada Mareykanka si ka baxsan qaanuunka Ruushka iyo Shiinaha ayaa taageeray codsiga Caracas ee ah in golaha ammaanka uu yeesho kulan degdeg ah hagaag macluumaadkaasna halkaas aynu kaga gudubna waxaan u gudbaynaa caawa xiisadda u dhaxaysa Iiraan iyo Israa'iil oo ka sii daraysa hadallo kulul oo hawada la soo mariyay ayaan idin haynaa sidoo kale Iiraan waxay ka hadashay in waxa wada hadal ah iyo gorgortan aan laga geli karin gantaaladeeda sheekadaas ama sheekooyinkaas iyo kuwa kale ayaan u gudbaynaa ha yeeshe aynu ku hakanno qadar xayeysiina hoyga barashada diinta ee xifdul qur'aan online maadooyinka markala dacwadayaan si aad ula socoto oo hesho wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadkan aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waadna ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka wali waxaad la socotaan barnaamijkii qubanaha oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad kala socon kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah warar faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirna HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka waa hagaag wararkayagii xalay ilaa iyo maanta waxaad kula socoteen xiisadda Iiraan iyo Israa'iil oo ka sii daraysa Iiraan maanta waxay tijaabisay gantaalo hor leh barnaamijkii wararka caawa oo barnaamijkan ku horeeyay ayaan aad u faahfaahin arrintaas dhowr magaalo oo ku yaala waddanka Iiraan ayaa tijaabooyin laga sameeyay arrintan waxay ku soo aadaysaa 24 saac gudahood iyadoo Israa'iil ka qaylisay gantaalada Iiraan oo ay u sheegtay Mareykanka Iiraan inay damacsan tahay weerar inay soo qaado kulanka dabayaaqada bishan ku dhex mari doona Mareykanka Donald Trump iyo Netanyahu arrimaha ugu waaweyn laga wada hadli doona waxaa ka mid ah suurtagalnimada weerar lagu qaado Iiraan iyo halista gantaalada Iiraan markii hore arrinta waa la qarinayay gantaalada Iiraan waxaa lagu sheegay inaysan saameyn yeelan laakiin barnaamijkii saaka ee xulashada wararka waxaan idinkugu soo gudbinay nin ka mid ah wariyaasha ugu caansan Israa'iil oo telefishinka ka baahiyay macluumaad la xiriira qasaaro ballaaran oo gantaaladu ay u geysteen gudaha Israa'iil arrintii waxaa ka sii daray
senator Lindsey Graham oo ka mid ah aqalka sanadka waddanka Mareykanka aadan u taageeray Israa'iil ayaa qayliyay wuxuu leeyahay gantaalada Iiraan waxba lagama qaban karo nidaamyadii difaaca ayay jiireen Israa'iil waxay leedahay 4 nidaam oo difaac ama 4 lakab laba ayadaa soo saarta labana Mareykanka soo saara hadda Jarmalka ka iibsaday mid ka mid ah nidaamyadaas difaaca 4 bilyan lacag ka badan ayuu ku gatay Jarmalku laakiin nidaamyadan difaaca oo lagu faani jiray Iiraan baa ceebaysay saasoo tahay gantaalada Iiraan ay isticmaasho waxa la sheegay inaysan ahayn 80% gantaalada casriga ah oo wixii ay beekhaaminayso dhowr xabaa la soo riday gantaalka hypersoniga guuxiisa ka dheereeya oo la yiraahdo Fatah iyo Hormashaar laakiin gantaalo kale nooca ballistic ah iyo kuwa kale cruise missile iyo diyaarada droonisa ayaaba nafti loo keenay Israa'iil Lindsey Graham marka wuxuu leeyahay Iiraan gantaaladeeda waxba lagama qaban karo waa in laga hortagaa barnaamijka Bris waxaan ku soo gudbinaynaa sheeko cusub oo soo baxday oo leeyahay 3,000 oo gantaal ayay bishii soo saari kartaa Iiraan arrintu waa la yaabiyay way noo soo socotaa marka Iiraan oo leh maba laga wada hadli karo gantaaladan laakiin waxaan ku hormaraynaa warkan la xiriira hadal ka soo yeeray taliyaha ciidanka Iiraan oo digniin jeedinaya taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ee dalka Iiraan General Amir Hatami ayaa wuxuu maanta sheegay in ciidamada Iiraan ay diyaar u yihiin waliba go'aan adagna ay kaga jawaabi doonaan tilaabo kasta oo khalad ah oo ciyaar suuqnimo ah oo cadawga soo qaado xilli xiisada gobolka ay cirka isku sii shareerayso General Amir ayaa hadalkan ka sheegay kadib booqasho uu ku tagay cutubyo ciidan oo ku sugan galbeedka dalka isagoo tilmaamay in ciidamada Iiraan si joogto ah ay u kordhinayaan diyaar garowgooda gaar ahaan la tacaalida weeraro toos ah iyo hanjabaadaha aan caadiga ahayn wuxuu sheegay in Iiraan si dhow ay ula socoto dhaqdhaqaaq kasta oo cadawga isla markaasna si degdeg ah ay uga jawaabi doonaan haddii la isku dayo weeraro cusub Hatimi ayaa xusay in ciidanka Iiraan ay casharo badan ka barteen gardaradii Israa'iil iyo Mareykanka bishii June sida uu yiri isagoo ku celceliyay in diyaaradaha ciidamada cirka ay door muuqda ka ciyaareen dagaaladii dhacay iyo in diyaaradaha Israa'iil gaar ahaan diyaaradda leerada Hiron la soo riday laguna soo riday xuduudda dalka Iiraan dhankeeda galbeed taliyaha ayaa carabka ku adkeeyay in Iiraan aysan marnaba ogolaan doonin in lagu soo xadgudbo madaxbannaanideeda ama dhulkeeda isagoo tusaale u soo qaatay in dagaalka Iiraan iyo Ciraaq aysan lumin xitaa 1 mitir wuxuu ku booriyay ciidamada inay u diyaar garoobaan ayna ilaashadaan badbaadadooda isagoo sheegaya in dalka difaaciisa mudnaanta koowaad ay tahay hadalka markuu maanta jeedinayo waa marka la sameynayo dhoolatuska gantaalada la ridayo gantaalo magaalada hawada Iiraan dhamma gantaala qabsaday in badan oo kamid ah hawadii baa la xiray diyaarada maysa marayn haddaba natiijaha soo hadlay marka isla caawa aynu eegno hadalkiisa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil si dhow ay ula socoto dhoolatusada military ee Iiraan isla markaasna wuxuu ka digay in weerar kasta oo lagu soo qaaday Israa'iil looga jawaabi doono si aad u daran xiisada Iiraan iyo Israa'iil ayaa cirka isku sii shareeraysa iyadoo laga cabsi qabo isku dhac cusub oo military markii hore marka waxa lagu ciyaarayay kubadda gudaha Iiraan macnaha Iiraan baa la weerarayaa waa la hujuumayaa baa lahaa laakiin hadda waxa laga baqay in weerar soo qaadaba weerarka waxa loogu magac daray sida qobarada ay sheegaysa ka hortag maska intuusa kuwa candhuufin ayaa lagu candhuufaa macnaha weeye taasaa marka laga cabsi qabaa haddaba waxayna kula eegaynaa war kale oo weyn oo isla caawa ka soo yeeray Iiraan dowladda waddanka Iiraan ayaa farta ku fiiqday in barnaamijkeeda gantaalada uu yahay mid difaac oo loogu talagalay in looga hortago cid kasta oo damac u ka galo weerar lagu soo qaado dalka iyadoo sheegtay in awoodeeda military aan gorgorta la gelin karin afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan Ismaaciil Bakhai ayaa shir jaraa'id oo qabtay wuxuu ku sheegay in gantaalada nooca balastiga ee Iiraan loogu talagalay difaaca dhulka Iiraan ayna ka baxsan yihiin
waxa wada hadala macnaha maba laga wada hadli karaba Israa'iil ayaa hore u sheegtay in gantaalada Iiraan iyo barnaamijkeeda nuclearka ay yihiin laba qatar ee ugu weyn oo markaasi ay doonayso inay ka takhalusto intii lagu jiray dagaalkii 12 maalmood socday ee bishii June Iiraan ayaa duqeymo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuriyaha lahayn waxay ku harqisay magaalooyinka Israa'iil halka Israa'iil weerar ay ku qaaday xarumo military goobaha nuclearka iyo xaafado ay degan yihiin dad rayid ah waxaana ku dhintay boqolaal qof telefishinka NBC ee laga leeyahay Mareykanka ayaa waxa uu wariyay in Israa'iil ay qabto walaac weyn oo kordhaya oo la xiriira in Iiraan ay dib u dhistay wax soo saarkeeda gantaalada isla markaasna laga yaabo weerar cusub oo la qorsheynayo si loo joojiyo dadaaladaasi waxaa sidoo kale la filayaa in Netanyahu arrintan uu kala hadlo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wadahadallada dabayaaqada bishan ay ku yeelanayaan Mareykanka ayaa si kooban uga qayb qaatay weeraradii lagu qaaday xarumaha nuclearka ee Iiraan ka hor intii aan la gaarin xabad joojinta iyadoo Iiraanna ay duqeysay mid ka mid ah saldhigyada Mareykanka ee ku yaal dalkaasi Qatar dagaalkan waxa la leeyahay hadduu dhaco ma noqon doono dagaal xabad joojintiisa adeegday ku dhacdo gobolka oo inuu ku fidaa laga cabsi qabaa maxaa yeelay Israa'iil iyo Mareykanka dagaalkaas day qaadaan meesha waa in laga saaraa nidaamka islaamiga ee waddanka Iiraan ka jira oo laga takhalusaa gantaalada iyo waxaas oo idin Iiraan waxay isticmaali doontaa awoodeeda sida qobarada ay sheegayso Israa'iilna waxaa suurtagal ah dhaawac weyn inuu gaaro xitaa gobolka ayaa laga cabsi qabaa inuu isla qarxo laakiin arrintan ma ku dhiiran karaa baa la isweydiinayaa madaxweynaha Mareykanka doorasha ku soo socota gobolkan dambu ka leeyahay waanu arkaynaa Gaza in la leeyahay waxa lagu maalgelinayaa 100 bilyan lacag ilaa 6 trilyan ah wuxuu ka qaatay wadamadan Imaaraadka iyo Qatar iyo Sacuudiga Jared Kushner wiilka sodoga uu yahay iyo wiilkiisa Eric Trump iyo Stephen Witkoff waa rag ganacsatada laftigooda hanti badan bay gashadeen gobolka qandaraasya la kala galay marka Israa'iil oo Netanyahu 1984 uu lahaa Ciraaq hal weeraro hub nuclear haysata sidee ku dhici karta ayaa la isweydiinayaa Trump inuu ku aqbalo ilaa maanta waxa warbaahinta la wareejinayay 1984 wargeys ka soo baxay Israa'iil wuxuu leeyahay Iiraan 3 bilood ay u jirtaa nuclear inay samaysato ilaa hadda ma samaysan xitaa dadkii Mareykanka waxay leeyihiin annaga Israa'iil maalin kasta lama qaldi karto dagaalka Ciraaq baan galnay Afghanistan baan galnay Syria galnay Soomaaliya dagaal ka galnay Liibiya dagaal ka galnay miyayna taageertay Israa'iil hal ciidan ma noogu soo dirtay leeyihiin Mareykanku maxaa ugu dhimanaynaa arrinta markii la isweydiinay arrintaas weey marka Trump marka muxuu ku qanci doonaa baa la isweydiinayaa haddii Netanyahu ila weerar Israa'iil haddii Iiraan haddii ay noqoto markaas inuu diido suurtagal waxa baa leeyahay Netanyahu inuu isna diido dagaalka Gaza iyo arrimaha uu wato iyo xabadda in la joojiyo iyo waxaas oo idil asana markaas uu yiraahdo gobolka oo dhan qor dablaan suraya dad badan waxay leeyihiin oo yaa ka liita markaa adigiiba barnaamijkan soo socda oo barnaamijkan ku xiga waxa idin soo gudbin doonaa qobaradii ugu cilmiga sarreysay Israa'iil oo haajiraya dadkii PhD da haystay dadkii haystay shahaadooyinka sarsare masterka yani dadkii aqoonta lahaa baa Israa'iil ka haajiraya dhaqaaluhu waa liitaa ciidanka dhibaata ka jirta warbixin waxaan idin soo gudbin dhawaan 500 oo saraakiil oo ruqsaysanaya oo ciidan dagaal ma gelin anaga laakiin waxa leeyahay su'aasha Trump ma ku dhihi karaa Netanyahu yaa ka liita dagaalka dad gashay waan ogaan doonaa meesha ku dambaysa arrintaasi waxaad imika waxaynu soo gaarnay sheekada ugu dambaysay ee barnaamijka aynu ku soo gabagabeey jirnay aanaba waxaynu ku soo qaadanaa sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxa walba waa lagu tartamay laakiin waxaan idin haynaa tartan cajiib ah ma aha kubadda cagta fair ma aha dabaal ma aha orod ma aha gawaari ma aha wax walba lagu tartamay
waxaan idin haynaa sheeko ku saabsan malabka in la cabo lagu tartamaya dalka Turkiga ayaa ka dhacday arrintan dhowr nin baa la isku keenay waxaa la yidhi 1 kiilo oo malaba ninkii ugu hor dhameystay ayaa la rabaa waad arkaysaa dharadii waa la qabsaday qaar baa markay kabadeen intaa wadi waayay laakiin nin oday oo 60 jir ayaa ka laacay dhaladii oo dhan dignin arrintan annagu ba caddayn karo in caafimaadku ku jiro samaynin ilaa dhakhtar aad la tashitid ama qof arrimahana ku xeel dheer yani tartanka ay u dhacay idiin sheegaynaa mooyaane arrin aad ku dhiirigelinayna ma ahan sababtoo caafimaadka waxay yeeli kartaa xitaa haddii aad isku daydo 1 kiilo malaba inaad cabto waa laga yaabaa qaado iyo 2 qaado inay muhiim tahay laakiin meesha dhalooyinka la cabaya malabka ah anoo garamayna waxay ka sameynayaan raggani laakiin ha isku dayin وهاجد انت ayaan ku soo gabagabeynaya caawa barnaamijkii waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararkan barnaamijyadan iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waa inoo barnaamijka xiga inta ka horeysa